waxay ahayd maalmo adag oo shacabka reer Laascaanood dareemeen beerlaxawsiga iyo dowladnimada Somaliland ay ku baaqayeen inay ahayd mid dhisitaankeedu macnaheedu uusan dhaafsiisanayn oo kaliya in lagu caburiyo dhulkoodana markaasi lagaga barakiciyo nidaamka caadifada iyo sirnacaybka oo biyadhigeen ee shacabka reer SSC waxa mar kaliya isku si ugu dhibcay colaada goonka ah ee maamulka Hargeysa uu hayo shacabka daraawiishta waxaana mar kaliya shaaca ka cadaaday wajigii dhabta ahaa ee maamulka Somaliland oo in muddo markaasi qarsanayay kaasoo dulucdiisu ay noqotay uma baahnin reer SSC laakiin waxaan u baahanahay dhulka ay degan yihiin halgankii la goobtay gigsadeen gacmaha taagin halgankii kungulamo iyo loo guntaday hooga gobay isagoonan weli gaadhin in gumaysi kala qaybiya sow guriba sow maha toddobiyo labaatankii December ee sanadkiina weedaartay ee 2022 subaxnimo hore ayaa shaariciyada magaalada Laascaanood ay soo daadegeen shacabka reer Laascaanood si ay markaasi u muujiyaan dareenkooda la xiriira dilalka haldoorka muddada 15 sano ah madaxduubashada markaasi lagu khaarajinayay hashiyay nidaamkii isagu markaasi ka dambeeyay hawlaha khaarajinta qarsoon ee Somaliland oo markaasi lagu gumaadayay bulshada SSC lebeentooda waxay markiiba ooda ka soo qaadeen maleeshiyaadkooda arxan darrada iyo gumaadka shacabka SSC loo diyaarsaday dhimashada iyo dhaawaca looga meeldayin caruur iyo haween midna lama badbaadin waa dilkii ugu dambeeyay ee qarsoodiga ah lagu khaarajiyay silsilada taxanaha ee dilalka haldoorka SSC waxaana uu noqday hadraawi saguub oo ahaa kii ugu dambeeyay ee lagu soo khatimay isla mar ahaantaasina dhaqaajiyay marqura dareenka bulshada reer SSC intaasi kadib waxaa bilaabmay halgan qadhaadh oo qoryaha lidka diyaaradaha ee maleeshiyaadka Muuse Biixi shacabka reer Laascaanood ay markaasi kala hortageen dhagax iyo tuuriyo maalinkii horeba maleeshiyaadkan turaalaha aqoon ee maamulka Somaliland ugu magacaaban ciidanka amniga ama boolisku waxa uu cadaatay inaanay markaasi hor istaagi karin shacab godooday oo dulqaadkoodii markaasi uu soo idlaaday waxay ahayd maalmo adag oo shacabka reer Laascaanood dareemeen beerlaxawsiga iyo dowladnimada Somaliland ay ku baaqayeen inay ahayd mid dhisitaankeedu macnaheedu uusan dhaafsiisanayn oo kaliya in lagu caburiyo dhulkoodana markaasi lagaga barakiciyo nidaamka caadifada iyo sirnacaybka oo biyadhigeen ee Somaliland waxay bulshada reer Laascaanood mar kale markaasi u dalbeen maleeshiyaadkooda qoyska kaliya ka kooban ee militariga ay ula baxeen kawarida gaashaman iyo qoryaha darandooriga u dhaca iyo dhallaanka iyo da'yarta reer Laascaanood ayaa mar kale isku arkay shaariciyada magaalada Laascaanood halkaasi weeyay halka uu ka bilowday halgankii sabiga iyo dhallaanka reer Laascaanood markaasi ku dareemeen nacayb gaamuray ee cududa iyo ciidanka markaasi loogu kaydsanayay duleedka magaalada Laascaanood muddada 15 ah inaysan ahayn dawlad iyo maamul markaasi ka turjumaya iyaga rabitaankooda iyo mustaqbalkooda balse Somaliland ay ahayd nacab iyo cadow markaasi ku soo duulay jiritaankooda iyo noloshoodaba banaanbixi iyo baroordiiqdii loo sameeyay marxuun hadraawi saguub waxa nidaamka Hargeysa uu markaasi raaciyay nolosha da'yar wiilal iyo gabdho isugu jira oo tiradoodu ay 20 markaasi gaaraysay waa maalin kale iyo 28kii bishii 10aad ee sanadkii 2022 waxay ahayd maalintii ay markaasi soo baxday hal wada dhinto intii daryeel xumo lagu noolaan lahaa waa qoraalkii ugu dambeeyay ee uu qoro haliyay dhalinyaro ah waa shahiid Cabdishakuur Axmed Salaad korintaanay markaasi wadnaha ka cuskan xabad toogaal ah oo si bareer ah maleeshiyaadka cadowgu ay ula beegsadeen tanina waxay halganka ku biirisay dhiiranaan iyo markaasi dhimbiilo hor leh iyo kacdoonku uu sii laba jibaarmo dilalka iyo xasuuqa maleeshiyaadka maamulka Somaliland kama aysan markaasi damqan oohinta dhallaanka Laascaanood ee markaasi ku dhiga barjoobay dhawaqa rasaasta habeen iyo maalmin socota iyo waliba dilalka loo geysanayo dhalinyarada gadoodsan ee saaxiibadoodii heladoodiiba had iyo habeenba meydkooda markaasi la sii shido hadalada Hargeysa iyo kuwa mustambeedka oo maleeshiyaadka argagixisada Somaliland waxay ahaayeen kuwa ku tiiqtiiqsi iyo kibir markaasi xambaarsan waxaanu hambalyeynaa ciidanka qaranka ee sugaya amniga Laascaanood kooxo wadayaal ah ayaa Laascaanood dib ka wada iyo hadallo badan oo ka aradan habdhaqanka islaamka milgaha dawladnimo iyo dadnimada ayaa ahaa kuwa markaasi dabka ku sii shidayay halgankii dulmadiid ay ku shahiideen in badan oo kamid ah da'yarta iyo barbaarta reer Laascaanood kowdii bishii January ee sanadka cusub ee 2023 ayaa garajaamac Garas Ismaaciil oo ahaa isimka kaliya ee xilligaasi ku sugnaa gudaha magaalada Laascaanood xilli habeenimo ah oo markaasi ku dhawaaqay hadallo damqasho iyo la dareema noqday halganka shacabka reer Laascaanood Somaliland ha kala baxdo ciidankeeda magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba geeyiga SSC ismada dhaqankuna ha soo galeen magaalada ay ahayd tiraabtiisii waana tan waad ogtihiin Laascaanood 15 sano ugu dambeeyay
dilal qorshaysan baa ka dhacay in badanna waa laga hadlay maamulka Somaliland isagu markaa deegaanka joogayna kor iyo hoosba waa loola hadlay mar kasta oo lala hadlana hadalka waxay ku soo ururinayeen tallaabaan qaadana iyo iyaga islaaya waxaan leenahay markaa arrinkani maanta dhacay ee hadraawi ugu dambeeyey ee xasuuqu ka dambeeyey haddii dadku ay kaceen oo ay dareenkooda muujiyeen ma ahayn in xabad lagu jawaabo arrinkaasi arrin aan aqbalanana ma aha wax ummaddu ay aqbalaysana maaha waxaan leeyahay markaa maamulka Somaliland isagaa mas-uuliyadda qaadaya dadkaa la laayay isagaa ka mas-uula waxaanu leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka baxa magaalada guud ahaanna dalka oo dhan ka baxa odayadii ka dhiribshay haweenkii maxaa dhameeyey maxaa dhalinyaraadi laayay dhallankii maxaan u weynay maxaa dhan walba u basbilshay guryiya wada dhisaynay intaa wixii ka dambeeyey halgankii dulmidiid kuma koobnaan oo keliya barbaarta kacdoonka ee wiilasha iyo gabdhahaba badaniba ay naftooda markaasi ku waayeen ilaalinta sharaftooda iyo karaamadoodaba waxaana ku soo biiray waayeelkii iyo waxgaradkii shacabka reer SSC ee dal iyo dibadba ku dhaqnaa yaa maali jiray ayaa xal ku gaadhay guud ahaana shacabka reer SSC waxa mar keli ah isku si ugu dhibcay colaadda guunka ah ee maamulka Hargeysa u hayo shacabka daraawiishta waxaana mar keliya shaaca ka cadaaday wejigii dhabta ahaa ee maamulka Somaliland uu in muddo markaasi qarsanayay kaasoo dulucdiisu ay noqotay uma baahnin reer SSC laakiin waxaan u baahannahay dhulka ay degan yihiin halgankii gabdhiya wiilaliya geesi lagu waayay halgankii la goobtee gigsadeen gacmaha taagin halgankii kungulamo iyo loo guntaday hooga gobay isagoonan weli gaadhin in gumaysi kala qaybiya sow guri ba'sow maha